munaasabadda xil wareejinta gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle Cali Jayte Cismaan oo maanta ka dhacday aqalka gobolka waxaa ka soo qayb galay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble, saraakiisha ciidamada qalabka sida noocyadooda kala gedisan, amisom iyo odayaasha dhaqanka gobolka. xil wareejintan ayaa timid kadib markii Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble oo kaashanaya odayaasha dhaqanka gobolka uu ku guuleystay in si nabad ah uu ku dhameeyo xiisadii ka dhalatay xilka qaadistii Masar Cali Maxamed Caraale, isla markaana uu Ugaaska hor istaagay in amisom iyo ciidanka qalabka sida in qaab awood ay ku dheehan tahay ay ku soo afjaraan xiisadii jirtay. Ugaaska ayaa sidoo kale ku guuleystay in si fool ah uu isaga horkeeno gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale iyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Jayte Cismaan, kuwa oo ugu dambeyn ku heshiiyay inay dhacdo munaasabadda xil wareejinta. gudoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa sheegay in uu ka tanaasulay khilaafkii jiray, waxa uuna bulshada gobolka ugu baaqay inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub ee gobolka Cali Jayte Cismaan. inaan halkan isku nimaado xafladda xil wareejinta maamulka gobolka oo dadaal dheer ay u soo galeen Ugaaskeena Ugaas Xasan iyo salaadiinta kale iyo taliska ciidanka amisom iyo akhyaar kale oo fara badan kadib khilaaf ka dhashay maxaan ku raahdaa xilka qaadistii iyo magacaabistii walaalkay Cali Jayte oo dhinac taagan sheeko dheer ka bacdi muddo laga joogo 2 maalmood shir aan ku yeelanay Ugaaska iyo aniga iyo taliska amisom waxaan aqbalay inaan wareejiyo xilka 2 maalin mar laga joogo ana ujeedada aan u sameynayna ay tahay xilliga adagoo lagu jiro iyo inaan u turo dalka iyo dadka tixgeliyo codsiga Ugaaska iyo walaalaheena amisom iyo salaadiin kale iyo akhyaar kale oo maanta halkan jooga iyo kuwa kale oo maqan. waxaan ku qanacsanahay wax kastoo qabay, xadgudub kastoo dhacay, dastuur kastoo jabay iyo wixii la soo marayba inaan ka soconno oo wixii dhacay iska ilowno oo aan u gudubno wixii hadda maanta la qaban karo iyo inaan xilka ku wareejiyo gudoomiyaha cusub walaalkay Cali Jayte. waa aqbalay wixii maanta ka bilaabana asaan xilka ku wareejin doona hadii la yiraahdo ama aan ku wareejiyay wixii dokumenti ahna insha Allah gadaal ayaan maxaan ku raahdaa aan ka wareejin doona. marka waxaan rajeynaa hadda wixii ka dambeeya shaqadii socotay iyo mashaariicii socday iyo horumarkii socday gudoomiyaha cusub walaalkan Cali Jayte inuu meesha uu ka sii wadi doono halkeena ay noogu sii socon doonto waxqabadkeennii. sidaa darteed waxaan ka codsanaa odayaasha dhaqanka Ugaaska, salaadiinta, amisom, dadka halkan isku yimid dhammaantood inay gacan siiyaan maamulka cusub oo lala shaqeeyo. kulley aan waxaan ballan qaadaa sidaan u ballan qaaday 2 maalin ka hor inaan la shaqeyn doono haddii la yiraahdo. wixii dhacayna sababteeda isagu ma lahayn waxaa lahaa madaxweynaha Hirshabeelle ayaa sababteeda lahaa isagana cafi masaabax walaalkeena waa la shaqeynaa haddii la yiraahdo. gudoomiyaha cusub ee gobolka Hiiraan mudane Cali Jayte Cismaan oo markii xilka uu la wareegay hadlay ayaa kaga mahad celiyay Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Rooble iyo dhammaan intii gacan ka geysatay inay dhacdo munaasabadda xil wareejinta. walaalkay waxaan leeyahay waa mahadsan yahay sida maxaan ku raaxay ixtiraam kale oo igu wareejiyay xilkana waa uga mahad celinayaa. aniguna waxaan ahay oday laga dhima jiray aan ahayoo siyaasadda qarar badan waa ka soo dhacay. xil gobol iguma horreyn aniga xil ilaa ministeraan soo ahaa ilaa MP aan soo ahaa ka horna waxbaan soo ahayn. haddana haddii la leeyahay waxbaa la noqon doonaa. walaalkay inaan iskaashi ka yeelano siyaasaddana waa u ballan qaadayaa haddii alla idmo waa u ballan qaadayaa waa soo dhowaynayaa siduu intuu ii quuro in la mid ahaan u quuri doonaa haddii alla idmo. adinkuna waa mahadsantihiin cid kasta oo waqti gelisay arrinkaanna waa uga mahad celinaya. cid kasta oo waqti gelisay haba yaraado ama ha badnaadee
anoon iloobi doonin walaalaheen ciidamada qalabka sida ama amisom sidaa ay isugu dhabar jebiyeen arrinkaas iyo ugaaska iyo odayaashii cuqaasha kale intaba waa ka mahad celinaynaa insha allah wixii hadda ka bacdayna hadal daba idama soo gaari doono xil wareejinta maanta dhacday ayaa kusoo beegmaysa xilli saqdii dhexe ee xalay gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan cali jayti cismaan ciidamo ka amar qaata ay qaab dhiig uusan ku daadan kula wareegeen aqalka gobolka oo muddo 19 cisho ah uu gacanta ku hayay gudoomiyihii hore ee gobolka ee maanta xilka wareejiyay Cali Maxamed Caraale 29 bishii hore ee Maarso ee sanadka 2020 madaxweynaha Hirshabeelle Dr. Maxamed Cabdi Waare ayaa u magacaabay inuu noqdo mudane Cali Jayti Cismaan gudoomiyaha cusub ee gobolka. Cali Jayti Cismaan gudoomiyaha cusub ee gobolka ee maanta xilka la wareegay waxaa horyaalla in uu wax ka qabto dhowr qodob oo ay ka mid yihiin amniga, dib u heshiisiinta, horumarka iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada. Maxamed Ibraahim Siyaad, Kalson TV, Beledweyne.